Banka dhexe ee Somaliland ayaa soo bandhigay calaamado lagu kala garanayo lacagta Somaliland ee la dhanrogo ama loo isticmaalo sida tuugada ah iyo lacagta saxda ah ee soo martay sharciga. Waxaana arrinkaasi ka hadlay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan banka dhexe ee Somaliland oo sheegay siyaabaha lagu kala garan karo waxyaabahan. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ka qayb qaadanaya carwada bangiyada Somaliland oo markii ugu horeysay la qabto waxaanu ku soo bandhigaynaa saddex waxyaalood oo kala duwan. marka koowaad waxaanu ku soo bandhigaynaa Central Bank ahaan regulationski iyo guidelineskii iyo sharciyadii bangiga dhexe ku shaqaynayay ee uu ku hagay hay'adaha maaliyadeed oo dhan. marka labaad waxaanu soo bandhigaynaa lacagta Somaliland security-ga ay leedahay iyo sida ay u ilaashan tahay iyo hadday dhacdo lacag been abuura sida lagu garanayo calaamadaha lagu garanayo. calaamadahaas oo ah maaha kuwa la arkayo kuwa qarsoon ay tooshashkii waxyaalaha la midkii sheegaan iyo mashiinada sheegaan. haddaan idin bilaabo halkan waxaan ku haynaa laba lacageeyo Somaliland oo 500 ah. haddayn tooshkan waxa la yiraahdaa security detector waa tooshka lagu ogaado inuu lacagta sheego. dhowr nooc buu ka kooban yahay. kan waa mid kamid ah, kan waa mid kamid ah, tooshashka kamid ah. kuwaas oo dhan waxay ku mid yihiin tooshashka lagu ogaado lacagta been abuurka iyo sida u jirto. haddaba haddaan tusaale u soo qaato laba lacageeyo halkan isbarbar yaala lacageeyogaas waxay ka kooban yihiin lacag been abuura iyo lacagtii sharciga ee Somaliland lahayd. waxaan hadda idin tusayaa sida loo kala garanayo lacagta Somaliland marka dhinaca dambe dhismaha laga qabto waxa soo baxaysa 5,000 oo shilin. 500 oo shilin baa soo baxaysa. hadday 5,000 tahayna 5,000 baa soo baxaysa. Banka dhexe ee Somaliland ayaa soo qaban qaabiyay carwada banka Somaliland oo Hargeysa si rasmi ah uga furantay.